faadumo oo magaceeda iyo codkeedu aan bedelnay si aan u qarin aqoonsigeeda 7 sano oo kaliya ayay jirtay markii cirbad si qaldan loogu duray ay sababtay in qaarka dambe ay naafo ka noqoto taasi ayay tiri waxa ay calaamad u ahayd bilowga nolosheeda halganka ah markii la guursaday waxaan la degnay qoyska seegayga hooyadiis habeen walba qolkeena ayay imaan jirtay wiilkeedana qol kale ayay geen jirtay iyadoo leh inaan naafanimadeyda isaga qaadsiin doono waxay nagu qasbeen inaan kala tagno markii aan cunugiisa u dhalay way yimaadeen si ay u eegaan in cunugu uu naafo yahay sideedoo kale in ka badan 12 qof ee qaangaar ahba ayaa naafo ah Soomaaliya badankooduna waa haween kuwii aan la hadlay waxa ay sheegeen inay dareemayaan inaysan ka dhex muuqan bulshada oo aaminsan dhaqan qoto dheer iyo fikrado qaldan oo ka dhigaya inay u nuglaadaan dhaleecaynta go'doomin iyo tacadiga ku salaysan jinsiga tacadiga jinsiyeedka dadka baahiyaha gaarka qabo way u nugul yihiin maadaama ayaga aysan xaaladii ama dhib meesha ka dhacay aysan ka baxsan karin sabab la xiriiro in qofkii lagu laayahay oo kale ama inuu arag laayahay ama in xaalad uu haysato markaas uusan qofkii jirhaan uusan meesha ka tagi karin mararka qaar waxa laga yaabaa in wacyigelin xumo ay jirto iyo waxbarasho la'aan qofkii uusan ogeyn waxyaabihii uu sameyn lahaa halka uu noqon lahaa hadii xaaladahan oo kale ay soo food saaraan 10 sano dadka naafada ah ee Soomaaliya waxay u halgamayeen aqoonsi dhanka sharciga ah kuwa safka hore kaga jira dagaalkan waxaa ka mid ah Maxamed oo aragga naafo ka ah hogaamiyana urur aan faa'iido doon ahayn oo caawiya dadka naafada ah si ay u dhexgalaan bulshada waxa uu si hagar la'aan ugu ololeynayay sharciga ilaalinta naafada qaranka kaasoo ugu dambeyntii uu madaxweyne Xasan Sheekh saxiixay bishii December 2024 marka ugu horeysa guriga ka soo baxay waxa ku bilaabaa in wadooyinka ay sheeg raf yihiin in wadooyinka wasaq yihiin biyo yaalaan waxaas ayaa sheeg waxay ugu noqdaan kuwa sheeg dhib ku ah mar walba dareenkayga aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay muddo dheer kadib oo 7 sano ah in Soomaaliya maanta ay leedahay sharciga ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah sharcigaas oo runtii fursad noo sii doono in dadka naafada laga hor qaado dhibaatooyinka inuu ka ilaaliyo haweenka iyo caruurta tacadiyaadka ku dhaco oo sheeg maaragtay la kulmaan inta ay sheeg noloshooda wataan rajada ka qabna sharcigan in dawladda ay dhaqan geliso runtii aad iyo aad ay u kooban tahay maadaama dhaqan ahaan lagu yaqaano in shuruucda la qoro meel la dhigo laakiin anaka hadaan hogaamiyaasha dadka naafada ah waxaan u taaganahay in sharcigeena uu noqon shuruucda kale inaan ku riixno dawladda inay dhaqan geliso sharciga sanadooyin badan dadka naafada ee Soomaaliyeed waxay u ololeynayeen si ay u heli lahaayeen sharci hadda oo sharciga la meelmariyay su'aasha ugu weyn ay isweydiinayaan ayaa ah sida uu dhaqan gali doono sharciga mid kamid ah qodobada ugu muhiimsan sharciga waa qodobka 7 kaas oo damaanad qaadaya matalaadda siyaasadeed ee dadka naafada ah dawladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale looga baahan doonaa inay hubiyaan in ugu yaraan 5% shaqaalahooda ay ka koobnaadaan dadka naafada ah horta xaqiiqada markaan ka hadalno hay'adda naafada qaranka kaligeed ma hirgelin karta sharcigan in sharcigan la hirgeliyo waa mas'uuliyad aad u weyn waxayna ku hagaagi kartaa oo ku hirgeli kartaa in la iska kaashado dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaybaha maartay bulshada ururada bulshada ganacsatada maxay ahayd hay'adaha dawladda xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka maamul goboleedada meel kasta dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay horta kow fahanto oo ay xaqiiqsato muhiimadda uu sharcigan u leeyahay oo u leeyahay qayb ballaaran oo bulshada ka mid ah iyadoo dagaalku uu hadda ka soo wareegay aqoonsiga sharciga una guuray wacyigelinta iyo dhaqangelinta bulshada ayaa hadda go'aansaday inay qaadaan tallaabooyin dhanka wacyiga ah waxaa ka mid ah Xafsa oo dhanka TikTok caanka ah waxa ay baraha bulshada u adeegsataa si ay kumanaan qof u wacyigeliso ayna u bedesho fikradahooda وانسلامي والله كان ما أهد markay ina wheelchair ku saaran ay arkeen وحفصن ويل نافه ما أهد
xafsasaan ma ahayd yani su'aala iga imaaday ebil ani waa isqari jira ma oo bulshada caadi ii barteen markii laakiin aan soo bandhigay saan ma ahayd kan ma ahayd haye waxa ka dareemay saan ku dhalatay su'aalo badan kaaga imaanay marka su'aalaha jawaabtoodin waa aan sii jiray isbedelayno hadda su'aalihi hadda maanta dhan ku jiro su'aala iyo xaqaaqa saan ka noqotay iyo badana ma liidho TikTok waxa kooda hore uu joogaa inaan wax ku wacyi geliyo oo dadka bulshada waxa jirto wali guriga joogo wax baranin wali ani kan jabsan inay wax baran karin aaminsan dadkaas waa ku wacyi geliyaa ano xataa iskoolka dharkii isku diyaarina anigoo marmar riwaayad oo waxbarashada ku saabsan soo dhigayo xafsa iyo maxamed waxay og yihiin inuusan fududeyn safarka ah in sharciga si buuxda loo maareeyo iyo ciribtirka dhibaatada dhaqanka qotada dheer aysan ahayn mid fudud balse hadda oo ay haystaan sharci ilaalinaya xuquuqdooda waxay aaminsan yihiin in ay haystaan fursad ay ku dagaalami karaan. Firdowsa Xaanshi, BBC, Muqdisho.